gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xariga ka jaray garoonka kubadda cagta Qoob Dooro kaasi oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha isboortiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Yabarowish isagoona bogaadiyay dhismaha garoonkan iyo sidoo kale muhiimadda uu leeyahay isboortiska gobolka Banaadir. waxaan mar kale ku faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka nahay gudoomiyaha gobolka handuq magaalada Muqdisho oo goobjoog nagala yahay garoonkii degmada Kaaraan ee Qoob Dooro oo wajigiisa koowaad soo gabagaboobay sida la socotaan maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka handuq magaalada Muqdisho sidoo hore ugu ballan qaaday in dhalinyarada iyo sportska maamulka gobolka Banaadir uu dhaxda u xirto horumarkeedana uu ka shaqeeyo garoomana loo dhisi doono hadduu Ilaahay yiraahdo degmooyinka gobolka Banaadir waa qayb ka mid ah ballanqaadkii uu ballan qaaday gudoomiyaha gobolka handuq magaalada Muqdisho sida u jeedaan garoonka biliciisa iyo qurxiisa aad iyo aad ayuu isku bedelay feeskii koowaadna uu soo dhamaaday maamulka gobolka Banaadirna wuxuu diyaar u yahay feeska labaad inuu asagana sameyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo kale gudoomiyaha nala joogo arrimahaas ka hadli doono hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa garoonkan looga faa'iideysan karaa maadaama magaalada Muqdisho ay aad iyo aad ugu yar yihiin garoomada kalena kii Stade Muqdisho Stadio Engineer Yariso iyo kan jaamacadahana ay ka kala socdaan ciyaaro kala duwan ee horyaalka xiriirka Soomaaliya kala duwan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waqtigan oo aad ugu yar yahay in tartan badan lagu qabto garoonkan wuxuu saaciidayaa in lagu qabto tartanka dugsiyada sare iyo hoose tartanka jaamacadaha sidoo kale gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo isna hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha garoonkan gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish celinayna maantay wanaag badan oo degmada Kaaraan Kaaraan loo sameeyay saakay ayaguna inay barbar istaagaan ay u istaagaan inkastoo bah isboorti yihiin ay isboortiga u heelan yihiin maantana waxaan rajaynaynaa waxa inoo dhiman insha Allah taala nolol dhameystiri doono waxa dhanoo dhiman iska yar insha Allah taala gobolka Banaadir iyo sheeg USA shaqada ay nooga qabteen degmada Kaaraan waa ka mahad celinaynaa. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan horumarinta ciyaaraha gobolka Banaadir isla markaana ay qayb ka ahaayeen dhismaha garoonkan dhameystirkiisa iyo dhismihiisa inaan maanta xarig jarno ayaa sharaf weyn noo ah. waa Ilaahay maadiis dadaal dheer kadib waxaan noo suura gashay garoonkii inaan dhammaystirno qaybtii koowaad uu yahay garoon si buuxda hadda u martigelin karaa kulanada isboorti ee gobolka Banaadir hadday tahay heer gobol heer degmo iyo dugsiyadaba. runtii garoonkan dhismihiisu ma ahayn mid sahlan si aad iyo aad ah ayaa loogu dadaalay waxaa iska kaashaday hay'adda Tisbalas iyo maamulka gobolka Banaadir qarashka ku baxay dhismaha garoonkan waxaa ka dhiman roogii garoonka iyo nalalkii ayaa ka dhiman waaweynaa oo suuro gelinayay in habeenkiina lagu ciyaaro. waxyaabahaas dhiman ayadana haddii intaan loo qabtay reer Kaaraan waa hubaa inay kaalintooda qaadanayaan. marka degmada Kaaraan dadweynaheeda bahdeeda isboorti maamulkeeda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa iska kaashan doona qaybta hartay. Mahad Dukane Yuusuf Soyaal TV Caabud Waaq.